xayeysiisyadan ayaa si isu soo taraya uga soo muuqanayay TikTok dhawaanahanba. Waa xayeysiisyo lacag lagu bixiyey oo dadka ku dhiirigelinaya inay soo dejistaan barnaamijyo si dhijitaal ah uga dhigaya haweenka kuwa qaawan, iyadoo la adeegsanayo sawiraanta ay soo dhigtaan barahooda bulshada. Waxaanu helnay ilaa 4 barnaamij oo ah kuwa sawiraanta qaawiya ama dharka ka dhiga, iyagoo si cad ugu dhiirigelinaya inay sawirro iyo muuqaallo galmo ah ka sameeyaan haween aanan raalli ka ahayn. Haweenka xayeysiisyadan lagu isticmaalay badankood waxay u muuqdaan kuwa AI lagu sameeyey, markii laga reebo shirkado isticmaalaya sawirro ay leeyihiin jilayaal caan ah sida Lena Headey iyo Maisie Williams oo ka tirsanaa taxanihii Game of Thrones. Barnaamijyadan ayaa badanaa ah kuwa caan ah. Kan hadda idiin muuqda in ka badan 1 milyan oo qof ayaa kala soo degay Google Play Store-ka. Waxay dadka siiyaan fariimo kooban oo ku ogolaanaya inaad sawirro iyo muuqaallo galmo ah abuurto adigoo dhowr mar gujinaya batoono. Samaynta sawirro been abuur ah oo haddana galmo ah iyadoo aan ogolaansho laga haysan qofka waa sharci darro dembi ka ah wadamo badan. Waxaan ku wargelinay TikTok arrintan, waxayna ka saareen xayeysiisyo badan madashooda. Laakiin qaar ka mid ah akoonnadii ayaa weli waxay sii wadaan inay sameeyaan muuqaallo la mid ah kuwii aan dacweynay. Waxay sidoo kale BBC-du arrintan u sheegtay shirkadaha Apple iyo Google. Apple waxay gebi ahaanba tirtay dhammaan barnaamijyadii aan ku dacweynay, iyadoo xitaa ka xayuubisay ruqsaddii barnaamij samaynta mid ka mid ah shirkadihii sameynayay muuqaalada galmada ah ee dadka looga been abuuranayo. Google waxay noo sheegeen inay baaritaan ku wado arrintan, balse wax tilaabo ah weli kama aysan qaadin.